ay ka mid yihiin waxyaabaha xasiloonaanta dalku ay ku dhisan tahay qaybaha ay ka mid yihiin daraawiishtuna waxa weeye nimanka iyagu soodimaha ilaaliya dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ciidamada birmadka biliiska oo sitaa diriiskii iyaguna ay lagu garan jiray ee ay diyaarka ugu ahaayeen mar walba hawsha iyo xilka soo food saaran Soomaaliyeed waxa uu daryeelay maatadii iyo carruurtii suuqyada daadsaneed ee dacdarrada iyo darxumadu suuqyada ay ugu diri jirtay xarunta dhalinyarada kacaanka ee Lafoole waxa maanta lagu carbiyaa ubaxa dalka u kacaya oo qaybtooda barito ka qaadanaya xilka dhismaha bulshada iyo dalka Soomaaliyeed dhalinyarada macadka tababarka ee xalane ee iyagu u darban difaaca dalka dhalinyarada xalane waxa weeye qaar loogu talagalay in ay difaaca dalka marka loo baahdo iyo meesha laga doono markaaba isku qaadaan waa dhalinyaro u jajabsan tababarka militariga waa niman meesha lagu aadiyo si geesinimo ah uga soo baxaya dhalinyarada Soomaalidu waxa ay naftooda dhammaantoodba u hureen difaaca dalkooda iyo horumarka danaha Soomaaliyeed xalane maaha meel hablaha lagu liido hablaha iyo wiilashuba way siman yihiin oo orod haddii ay noqoto liishaan haddii ay noqoto wax walba way ka siman yihiin ciidamada badda ee ilaaliya xeebaha dhaadheer ee quruxda badan leh ee dalka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed waxa weeye xoogga ilaaliya qarannimada dalka waa rag la miiray oo habeen iyo dharaar u heegana difaaca dalka Soomaalida waa birfinin ka hadhay oo aanay waxba mari karin haraad iyo gaajo ma yaqaanaan daal iyo jiljileecna ka fogeen ciidamada soo majeystayaasha xoogga dalka Soomaaliyeed haddaba hoog waxa leh cadowgu haddii uu isku dayo inuu ku soo gardaroodo dalka Soomaaliyeed waxa hubaal ah in ay ciidamadaasi cagta marinayaan marka uu cadowgu damco inuu far soo saaro qarannimada Soomaaliyeed ciidamadaasi waxa weeye niman iyagu loogu tababaray inay cadowga dhirbaaxa ku dhiftaan oo dhabarka ay ka jabiyaan marka cadowgu caqli xumadiisu ay siiso inuu ka soo daafureego dhulka Soomaalida ayaantaasi Oktoobar ay ahayd 12 sanadkuna uu ahaa 1977 looma kala hadhin dabaaldegga weyn ee lagu xusayay sanad guuradii 8 ee ka soo wareegtay kacaankii Oktoobar ciidamada qalabka sidaana waxa halkaasi ay ku soo bandhigeen hubka casriga ah ee la yaab kale hubkaasi casriga ah ee subaxdaasi la soo bandhigay waa mid cabsi gelinaya cadow ididiilo iyo geesinimona gelinaya dadweynaha Soomaaliyeed oo ku seexanaya niyadda u fadhida libaxyada xoogga dalkuna waxa ay goortaasi iyagu u jajabsan yihiin sida ay u isticmaalayaan hubkaasi oo ka mid yahay madaafiicda culculus ee meesha fog wax ka toogata oo meesha ay ku dhacaan holoc iyo dab mooye aan nafla ku haray
baabuur caadiya oo meesha maraysa hamoodine waxa ay sidaan sawaariikh la yaab leh oo boqol u dhaca oo barta roobka kaga dhigaya cadowga meesha uu ku dhuumanayo marka lagu rido burburatooyinka dulmara dhufays kasta oo cadowgu uu ku dhinto fagaarahaasi hubka lagu soo bandhigay waxa iyaguna dul marayay oo dabaaldegga dhinacooda ka qaadanayay ciidamada dayuuradaha ee dalka Soomaalida taariikhda haggashe maalintaasi Oktoobar ay ahayd 22 ee loo dabaaldegayay sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegtay maalintii kacaanku u dhashay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtee waxay ku waabariisatay oo ay ku farxaysay riyaaq iyo rayn waxa la isugu tagay